kun sagaal boqol iyo lixdankii juunna xornimada ka heshay xukuumaddan madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaynu ognahay in tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aamusan ilaa inta aan Soomaaliya lala gelin Soomaaliya haddii ay aqoonsanayso Somaliland iyada u taala Djibouti xuduudii marka Somaliland si ballaaran ayaa loo bartay. السلام عليكم داوديال سوماليلاند إلا أنتي أي قوستي إسرائيل لحية لباتك ديسمبر سنة كلبادة كونية شنية لباتنكا وحيز سوتري قاعدة ديكا ورباهية عالمك إسيابها كان الدول وهان ليسا ورباهية قاركد واحد كان تشوكتو إلى سوماليلاند أي مالك استكا لان يضع حد بوحصو اسمه هذا أريتاسي أي كجهل لي وحنا أريتاسي مركلة كرؤوسي كعسي أو سيل بكعلي وفتجي وكيبيد وزير كريم هذا بدأ إسرائيل كاسو ورباهية دوسنا مركلة أي أدو قاعدة رتي سوماليلاند waxaan la oran karaa Somaliland sanadkan waxa jirtay xawaari ugu sareeyay waxaana gaadhay heerkii ugu sareeyay tan iyo intii jirtay 24 sano Axmed Cali Cige oo kamida warbaahinta Somaliland ragga ugu khabiirsan isla markaasina tafatira ka soo noqday wargeysadii Somaliland ka jiray gaar ahaan wargeyskii Haatuf aadna ula socda warbaahinta caalamka ayaan doonayaa balna wax ka weydiiyo warbaahinta caalamku sida bay u qaadartay aqoonsiga Somaliland xawaari intee leeg ay Somaliland jirtay oo adduunka maanta intee leeg ayaa laga bartay axmed oo soo dhaweynaya bal ka waran warbaahinta caalamka iyo aqoonsiga Somaliland maxaa dhaxmaray horta khadar macallin deeq iyo bulsho TV aad bay u mahadsan yihiin runtii tan iyo intii ay Israel aqoonsatay Somaliland 26 bishii December sanadka 2025 magaca Somaliland waxa uu gaaray meel aanu abid hore u gaarin haddii aynu ku bilowno waxaynu ognahay imika haddaad magaca Somaliland aad Google garayso oo Google ku qorto markiiba waxa ku soo baxaya in Somaliland la aqoonsaday qayb ahaan halkii Somaliland ay markii hore cid aan aqoonsanayn ay jirtay imika partially ay loo aqoonsaday tan iyo intii aqoonsiga ka dambeysay warbaahintu magaca Somaliland si xawliya ayuu u galay oo loo bartay oo ay wax uga qorayeen iyaga oo la soo xiriirayay muwaadiniin reer Somaliland oo falanqeynayay arinta aqoonsiga iyo waxay Somaliland soo kordhin doonto sidaynu ognahay Somaliland waxay ku taalaa mandaqad cajiib ah oo haddii ay tahay marinkan Baabilmandar amba Gulf of Aden amba gacanka Aden runtii berbera oo iyaduna dekad muhiim ah oo sidaynu ognahay kaalmaha hore kaga jira Afrika oo dhan oo kaalinta koobaad gashay waa marin muhiim ah oo indhaha caalamku ay soo eegayaan oo istiraatiijiya oo dhinaca Cadan iyo waxay naga xiga xuduudii marka Somaliland si ballaaran ayaa loo bartay welibana Somaliland waxa meeqaamkeeda kor soo qaaday socdaalkii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee Israel oo dawladii ugu horeysay ay aqoonsatay khadar oo haddaan su'aashaadii soo noqdo warbaahintu si cajiib ah ayay u qaada dhigaysay haddii aad aragto Al Jazeera oo lafteedu iyadoo aynu u arkaynay wadamada Carabta wadamo warbaahinteedu ay lid ku ahaayeen istiraatiiji ahaan Somaliland iyo aqoonsiga ay Israel ay ka helay labadaba haddana marka negative lagaaga hadlo iyo marka positive lagaaga hadlo labadaba magacaagu u baahaya marka warbaahinta Carabta ee bariga dhexe oo kale oo Middle East warbaahinta oo dhani way qaada dhigaysay Somaliland oo way ka hadlaysay Somaliland inuu ahaa maxamiyad Ingiriiska ka tirsan oo 35 wadan ay aqoonsanaayeen 1960 juunna xornimada ka heshay runtii warbaahintu si fiican ayay uga hadashay shacabka Somaliland aad bay ugu mahadsan yihiin Axmedow warbaahintu siyaabo kala duwan bay uga hadlaysay qaar waxay ku dabaqayeen Soomaaliya ayay qaar la socdeen qaar Somaliland bay la socdeen bal sidee bay u kala aragti duwanayeen runtii warbaahintu waxay ugu kala aragti duwanaayeen qolo iyagu waxay marka aad magac oo kale aad ka eegto waxay oranayeen wadan ka go'aya Soomaaliya qaar baa inagu sheegayay secessionist dad iyagu gu'itaan doonaya
runtii way fara badnaayeen laakiin qaar baa marka ay land of Soomaaliya ayay qaar ciwaanka ka soo dhiganayeen halka qaybaha carabiguna ardu Soomaal sidii caadiga ahayd oo Somaliland ay ka dhigeen marka warbaahintu saasay u kala duwanaayeen magaca Somaliland sidaas uu meel sare u gaaray marka runtii arrin guula ayay arintaas ahayd warbaahinta qaar baa sidoo kale waxay qorayaan wadamo kale oo ku soo xiga Israel ay jiraan warbaahinta caalamka qaar baa saa qoriyay bal kuwa ka war runtii sidaynu ognahay xukuumaddan madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Carro waxaynu ognahay in tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aamusan ilaa inta guusha laga gaadhayay inay qaadayeen warbaahintuna waxay qorayaan sida aad sheegtay wadamo badan oo ku soo xigi doona madaxweynaha laftigiisuna wuxuu inoo sheegay inay jiraan wadamo badan oo dhawaan aqoonsan doona ilaa iyo hadda laakiinse ma hayno waa arinta aynu filayno in Somaliland wadamo kale ay ku dhiiradaan maadaama awal oran jireen waa inay cid inooga horeysa oo imika sida Ethiopia oo kale Imaaraadka oo kale koonfurta Suudaan oo kale wadamo badan South Africa oo kale wadamo badan ayay Somaliland aqoonsiga marka ay ku xudxudanayso ay oran jireen horta waa inay cid inooga horeysa arinta cidda ku dhiiratay maanta waa Israel mar hadday aqoonsatayna oo aynu naqaano awoodooda iyo cidda la socota oo dawladda Mareykanku ay la socoto Mareykan laftigiisa aynu filayno in uu ka mid noqdo wadamada aqoonsada Somaliland xildhibaanadoodu ay had iyo jeer inoo doodayaan Ingiriiska oo kale inkastoo uu arintii golaha ammaanka uu kaga hadlay dhawaan markii arintan la keenay uu Ingiriisku yiri waa in ay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan runtii aniga shakhsiyan iimana muuqato meel ay maanta Somaliland iyo Soomaaliya ay ku wada hadlayaan sababtoo ah wada hadaladii 13 sanadood ee u dambeeyay socday wax midho dhala heshiisyada la galana Soomaaliya waa ka baxdaaba marka waxaynu filaynaa in wax wada hadaloo dambana aan Soomaaliya la gelin Soomaaliya hadii ay aqoonsanayso Somaliland iyada u taala Djibouti hadii ay aqoonsanayso iyada u taala Somaliland cid ay aqoonsi ka helayso cidna u daba fadhiisan mayso waanay gaadhaysaa waanay aqoonsan doonaa wadamada Axmedow in badan baad media ku soo jirtay oo warbaahinta Soomaaliland ka soo mid ahay maanta wixii u isbedeleen oo dal aqoonsiga Soomaaliland noqotay waxyaabo badan baa loo baahay in la xiriyo cadow badan baa jira bal fariinta dadka media iyo warbaahinta u marinahay qaabka u shaqeynayaan runtii horta warbaahinta Somaliland inteeda badani waxa ay difaacaan qarannimada iyo Somalilandnimada runtiina markaad warbaahin tahay waxa loo baahan yahay in wadankaagu uu ka ugu horeeya uu noqdo adduunkana wax warbaahin dhexdhexaadi Al Jazeera inuu arkaynaayo tii ugu weynayda wixii dagaalkii Liibiya ay ka samaysay baynu ognayad iyo dalka Qatar ee maamula warbaahinta Al Jazeera runtii wax dhexdhexaad la yiraahdaa ma jiro marka waxaan ugu baaqayaa warbaahinta Somaliland iyo saxaafadda Somaliland in wax dhexdhexaadi aanu jirin qaranka cadow badan buu yeeshay oo imika intan aqoonsiga Israel ay siisay indhaha ku soo taagaya marka in loo dhugu yeesho arrimaha laga warhayo oo loo jawaabo oo waxaan ku si cad oo qayaxan arrimaha si looga hadlo qadiyada Somaliland ay noqoto ta ugu horeysa maanta waa wadan la aqoonsan yahay marka baaqaygu wuxuu yahay in loo midoobo sidii loo difaaci lahaa qaranka aad ma santahay wariyaha Axmed Cali Cige ayuu kaasi ahaa oo aan ka wareysanaynay warbaahinta caalamka iyo sida ay u qaada dhigtay Somaliland iyo aqoonsigeeda iyo waliba waftigii wasiirka arrimaha dibadda Israel aad ma abka Dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka moobilka qiimaha cusub halka doolar waxaad ku helaysaa internet iyo ku hadal maalinle ah oo aan xadidnayn waxa kale oo shirkaddu qiimo dhimis ballaaran oo 40% kugu samaysay internetka toddobaadlaha hadda waxaad ku helaysaa $3 oo kaliya si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn ee maalinlaha toddobaadlaha waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay
goormay qasbadan ciidu ka shiiso unigii maalin dhawiidun hagaajinayay maaha ninka qasabada hagaajinay iminka halkeen ka helaa talo allah haddaan xasuustay iska daa adeega shaqo ayaan ka dalbanay haddaba si aad adeegan uga dhex dalbato xirfadle fadlan taabo xidig 7788 4 adeega shaqo waxaad ku isticmaali kartaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta caanka ah ee ka jira dalkeena